Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta soo dhawaada waa halkan janalka Faaliya fadlan haddaad ku cusub tahay subscribe noo saar noo like garay noo share garay waa inoo muhiim subscribe-ka haddaan maanta idin la socodsiiyo warbixinaha idin hayo waxaa ka mid ah caleemo badan oo la keenay caleemadii lagu gooyey sida digitalka waxaa la computerka lagu gooyey caleemo waxaa jiraan oo lagu gooyey qad faraha la iskaga qaadiyo caleemo baryahan dambe arrinta waa la hormariyo caleemaha waxaa lagu qaadayay digital computer lagu qaadayay computerka caleemaha lagu qaadayay koodii 6 bilood ugu dambeysay lasoo gooyey way imaadeen caleemadaas waxaa laga qaadan karaa goobta tirkoobka ifo iyo xaga dheer dhigaxley caleemo badan ay imaadeen marka waxaa laga qaadan karaa ayaa la sheedahay goobta tirkoobka markaa soo marto meesha ugu dambeysay caleemada ay yeelanaan waxaa la imaanaysaa waiting karka ama ku sugaadii oo lagu siiyey oo laga siiyey meesha tirkoobka meesha la tagaysaa oo lagu baarayaa sida dhigaxley oo kale waa la soo dhajiyay meesha raashinkii ku dhigan tahay oo magacyihii oo fara badan iyo magacaaga iyo wax dhan meesha ku dhigan yihiin waa ka soo fiirsan kartaa haddii aad ku jirto goob tirkoobka haddaad tirkoob martan ayaga nafteeda waa imaan kartaa ku sugtaada waa la imaan kartaa waa qaadan kartaa waa muhiim inaad qaadato allinkaaga waayo sharci waayo allin maalmar baa booliiska ay qabtaan oo allinkaa dadka loo qabtaa haddii aad wadato laguma qabanayo fadlan marka waa muhiim allinkaaga inaad soo qaadato fadlan allinkaaga doono hadduu soo baxay ka soo qaado hadduuna soo bixinna ayadana waxaan leedahay waa la fiirinaya hadduu ku soo socdo iyo haddii kale waa iska sugaysaa insha allah wuu soo bixi doonaa marka nin kastoo goostay allin oo uu soo baxay bishii lixaad hadda soo dhaafeen iyo wixii ka dambeeyey bishii sideedaad iyo bishii toddobaad ma imaanin waxay imaado waa bishii lixaad iyo wixii ka dambeeyey marka fadlan allinkaaga doono soo qaado arrinta kale waxay tahay hay'adda WFP sida ogtihiinba 3 bilood kasta lacagihii ay soo tuuraan qofkii la bixi waaye oo leenkooda iskugu tagto 3 bilood isku gaarto lacagihii way ka celiyaan waayo waxay u daliilsanayaan waxay leeyihiin 3 bilood ninkii leenkiisa lacag ugu jirto oo qaxooti loo soo diray lacag in la baxo uu ku adeegto oo bariis iyo baastis kor ilmaha ugu qaato oo la bixi waaye ninkaas uma baahno jakuladaas uma baahno marka waxaa muhiim ah in jakuladiisa lagala noqdo oo liskala noqdo hay'adda ay noqoto bangiga accountiga hay'adda ku noqoto oo dib ugu noqoto siyaabaha oo dadkaas ay leemankooda lacagta ay ugu jiri kartaa waxaa ka mid ah in leenkaaga aad u dhiibto dukaanlihiin uu ka warhaynin oo lacagtii asaga uu qaaday leenka meel iska dhigay adeegaada deyntaada waxaad waa qaadanaysaa waxaada laakiin lacagtii lama baxaa ninkan laakiin badanaa lacagaha waxay ka dhuntaa dadka ganacsiyaasha dukaanleyda oo radhadhaab ay lacagta ka dhumaysaa tii soo dhaafayay bishii afraad bishii lixaad lacaga badan 3 milyan la noqdeen marka lacagaas xoogoodu waa arki kartaa waa lacag faad u fara badan marka dadweynaha waxaan leeyahay in arrintaas ay ka waantoobaan ay iska fiiriyaan ay ogaadaan in lacagahaas ay leeyihiin ayagana ay ka maqan tahay marka leemankiin dib ugu noqdo fadlan baara in taariikh 28 bisha 10aad la gaarin lacagaas fadlan la baxa haddii aad bajkuladaada ay dhibkaa qabto ay ka hadlaysa miska dhunta misbiin aan ay ka tahay help desk loo targalay xafiiska WFP imaanaysa manifestka la imaanaysa fadlan manifestka la imaw raadso samayso waxa la ogolyahay haddii ay ka taalo xafiiska WFP jakuladaada ama ay meeshka taalo oo arrin aad u geyso oo ka hadlaysan tahay ama dhib ay qabto lagama celin doono lacagaha adiga waxaa kale jira dad badan oo lacaga ay ka maqan yihiin oo 2 bilood mise 3 bilood mise 2 bilood mise bil ay ka maqan tahay dadkaas oo ah dadkii leemankii ka halaabeen oo registration fail ka noqdeen ay ka dhaceen leemanka ama ka xirmeen oo dib u soo cusboonaysiiyey oo qaarkooda la siiyey oo gacanta ku haysta sida ani amal gacanta ku haysta laakiin 2 bilood lacag baa iga maqan 2 bilood lacagtoodii waa la soo wareejin waa la soo dhafaarka ma loo diray marka taar 28 inta gaaran ayaga la soo wareejin doonaa lacagiin way la bixi doontiin haddii biin uu ka maqan yahay fadlan xafiiska WFP tag manifestka qaado biinkaaga soo qaado dad baa biin la siin dadka biinka la siin biinkiisa doonta soo qaato xafiiska tago hata raashin hadduu jiro xafiiska tago xafiiska meen xafiis tag meesha soo ka tagi meesha xafiis tag oo lagu sameeyna biinkaaga marka dadweynahaas ayaga arrintooda waa la ogyahay Safaricom iyo WFP ay ogtahay ayaga lacagooda waa loo soo tuurayaa taar 28 inta la gaarinay soo tuur doona laakiin naftooda waxa loo baahan yahay in ay dheer ay lahaadaan waayo lacagta hadii lagu soo tuuraa in ka warqabin waa arrin muhiim dhibkeeda leh waayo hadda waxa janalkan Faaliya in subscribe daarto ugu muhiimsan waxay tahay in lacagaas qofka la socdo ومركي سان أي دولة بي وصل درته الحاجة عمل سيا دمسك لو صدره كل مصدر دونته مركي بيمك سان لو صدره الحاجة على صدره وحال ربع إن الله صعطه العقد هور كلا بعضه
intii taariikh 28 la gaarin nafteeda waa muhiim inaan la socoto waa muhiim maanta intaan soo gelin doonaa markii saa loo soo sheegay WFP ay dhahdo lacag maanta soo toon isla markii aad 20 minutes 30 minutes kadib qadkaan soo gelin doonaa insha Allah dadweynahan u sheegi doona intaan arkayo intaan gaaro waan u sheegi marka waxa muhiim ah in arintaas aad la baxdiin lacagaha idinka iska leh fadlan la baxa lacagahaasna waa soo wareejinaa qasab nin baa soo waxay dhahay lacagtaas WFP ku tagtay ama hay'adaha gacan gashay bis lacagaha kale lacagta ma sugeen marka walaaca noocaas oo dadweynaha ay qaban qaarkood marka walaacaas aniga boo insha Allah lacagaha way soo dhaceen WFP Allah bamba jakura systemkan bamba jakura wax ka dhumay malaha ninkii la baxan waxdan waa la arkay dukaankii la baxa waa la arkay wax ka dhumay malaha marka dadweynaha waxaan ku boorinaa in lacagahoodii ay la baxaan dad badan lacag badan leeman badan lacag ku jirta laakiin hay'ad waxay ballan qaaday dadka taamkadan lacagta ay ka noqoto leemankoodii oo ay ka warqabaan ama ay ka warqabin ama dukaanlaha u haayo haddii lacagtiina ay noqoto leenkaaga lacag uu ka noqdo waa la soo dhiibi doonaa leenkaaga waa lagu yeeri doonaa xafiiska lagaga yeeri doonaa adiga og waxaa ku jawaabaysa in leenkaagii oo nin ku hayay in adiga aad lacagta ka dharganeed inaad rabin lacagtii in waxba u baahneen adiga sheegi doonta marka waxaa loo baahan yahay in lacagtaadii iyo leenkaagii ku adkaato oo aad ogaato aad sheegto in leenkaagii meeshu kaaga gelay iyo siduu lacagta ku noqotay 3 bilood waxa uu la bixiyay waa laga rabo adoo qaxootiga joogto ku nool u baahan oo qaxooti wax fiican raashin fiican la siinayn abaar ay jirto rafaad uu jiro waxa lacagteeda u bixin ma garanayno anaga badanna 99 waxa iska leh lacagtaas dukaanleyda aan sheegay dad badan ayaa waxba kala ogeyn leemankii guriga iska yeelan meesha iska yeelan biilaan waay hadii biilaan lacagtu bixin cunuga ku bixin mas'uulka ku bixin gabadha ku bixin iska tuurayaan meel iska dhigaan bahalaasna lacag ku jirta fadlan dabagal ku samee leemanka ahaysa dhammaan dabagal ku samee ogow inay lacag kaga hartay inay lacag ku jirto in lacag ku soo dhacdo biin ay leen oo biin ku jiro fadlan ogow marka dadweynaha waxa loo baahan yahay in arrimahaas ay si fiican ugu jiraan arrinta ina sheegaysiin dadweynaha u sheegtiin muhiim ah oo dadka aad la socodsiin aad dhahdeen arrimahana soo kordhay sidana jirta lacag wala noqonaya biiminka darbiinka ma qanyaal biinkaaga doono hadii wax ka helaysiin soo sameeyso marka saas loo baahan yahay tan kale waa jadwalka tirkoobka xirada Ereenga Dhadhaab berito jimcaha ifa nuura waxa galay D1 maxaa waxaan leeyahay D4 sorry ifo waxa galay jibriil jimcaha D4 kaarka kuulaha kaliya D4 D5 la galaysa berito kaarka 20 laha 19 laha 17 oo maanta jimcaha berito ah oo dhifo ah xaga dheer hadaan tago maanta jimcaha xaga dheer waxa galay G10 iyo H1 bilawd xaga dheer H bilawtay G10 waxa galay kaar 9 8 7 6 5 4 3 2 iyo 1 oo G10 ah H1 oo 13 12 11 oo H1 hadaan tago xarada xaga dhagaxley oo ah xarada dhagaxley challenge badan ka jira meesha tirkoobkeeda waa jam waa rafaad marka xaradaas waxaan u sheegay dadweynaha oo iska imaanaya in ay iska imaanin xaradaas waxa loo sameeyay jadwal ninkii tirkoobka la soo dhajiyay fadlan imaado ninkii la soo dhajin way imaaneen way ogyihiin dadka shalay maanta imaanaya ayagoo la soo dhajin waxa ku dhacay ayagoo meesha tagana laga tagay waayo lama soo dhajin UNHCR uma yeerin ayaga iska imaadeen tan kale dadka DC DBD ee degan fadlan DT ma ga dhamaato hadda session D5 D6 maraysa ma ga dhamaato aan la soo dhajinayo fadlan ilmihiina meesha la imaanina dadweynaha ma iska imaanay fadlan ha imaanin hadaa aad ahayn dadka la soo dhajiyay oo maalintaas galay tirkoobka aad ahayn hadaan sheego berito dhagaxley waxa galayo waa D5 D6 iyo D7 D5 hadaan ku bilaabo waa kooley labaale oo D5 D6 oo 14 13 11 10 9 8 7 7 6 5 4 3 2 kooley oo D6 ah D7 15 12 11 iyo 10 D7 waxay ku egtahay 10 D7 waa 15 12 11 ay ku egtahay D7 marka dadweynaha waxaan ku boorinayaa inaad meesha ku soo logoyn hadii kaarkaaga la soo dhijin oo xaafada lagu keen aad arkin schedule-ka maalinta ku qoran tahay schedule-ka maalinta ku qoran tahay dad aragto oo schedule-ka ku qoran tahay fadlan UN way ku rabtaa waa ku imaanaysaa magaca la yeerinaya sidaas ku galaysaa meesha boona lagu siinaya tartiibka sharalba soo maraysa if waxa ka dheer waa iska faraaqo ma garanayo wax dhagaxley ku dhacay oo sayn u soo tuurinayaan dad badan oo waqti iska imaanay DBD iska imaanay dad badan xaafado badan marka hadaa habsantiina aan noqoto UNHCR ka qaab qabta si hore ku soo dhijin fadlan hadaa habsan tahay hataa fadlan iska joog habsantiis meesha lama gelinayo waa aragteen faada ka jira marka UN liiska soo qaana liiska yeerinaysa fadlan way ka tagaysaa dadka kala curyaamada iyo
maxaa la dhahay dadka oo masaakiinta oo la soo qaaday meesha la keenayo oo curyaamada dadka bareesha qaba dadka meesha ku rafaadsan oo bar la iska keenayo meesha fadlan dadkaas meeshaas u keenina waayo iyana hay dhaar xaafadaan ku tirko laakiin dadweynaha Soomaalida ma maqlayaan way diideen inay maqlaan halka dadka meesha la soo tuuray subaxii waxa tuuray curyaamada gacmaha lagu wada yaabasa marka dadka waa la yaabay marka dadweynaha fadlan dadkiin u naxariista ee meeshaas u keenina fadlan waxaan leeyahay asxaabta wixii kala ku soo kordho janalka Faaliyaha halkaana kala socon doontiin xiriirka dhadhaab kala soo kordho halkaana kala socon doontiin fadlan subscribe waa muhiim noo subscribe garee noo like garee noo share garee fadlan dadweynaha sidii warbixinta ay u helaan share ka fiican u share garee dadweynaha sida Facebook ku share garee WhatsApp gruubada geliya aragto sida dadweynaha kala ay uga faa'iidaan barnaamijkan Faaliyaha oo wax badan u soo kordhiya xiriirka dhadhaab asxaabta in salaam sare wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh